السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحاب قيمة بدن مانتي مقال عصب مقال كنا مانتا وحين كو قادنين هدو إبوين رالي كان نغضو أما أنكو بلابنا كورس عصب كورس سؤال ويندو 11 waxaan ku qaadanaynaa window koob iyo tobanaad oo xoogaa fiijarada window 10ka wax yar maaragtay ku kala duwan yihiin oo ama meelo badan ay maaragtay isku khilaafsan yihiin sidoo kale sida windowga loo duubana cashar gooni ayaan ka samayn doonaa oo koorso gooni aan ka dhigaynaa insha allah laakiin hadda waxaan qaadaynaa usagekiisa ama isticmaalkiisa ayaan qaadanaynaa okay casharkeena koowaad maanta waxaynu ku baranaynaa marka sida loo qariyo ama sida loo soo bandhigo standard iconska standard icons waxaa loo yaqaanaa waxaa jirto applicationo ku imaada computerka sida usagekan midkan userka ay ku qoran tahay midkan dcbc ay ku qoran tahay networka recycle bin control panel shantan application waa standard waay computerka ku yimaadaan softwareka wato oo windowska wato marka waxaa dhici karto haddii computerkaaga la dhaqo ama restart loo diro ama sidoo kale windowga haddii laga bedelo waxaa dhici karta marka shantooda inuu kaa qariyo ama afar ka mid ah inuu kaa qariyo mid ka mid ah uu soo bandhigo badanaa wuxuu sameeyaa recycle binka ayuu soo bandhigaa afarta kale waa uu qariya marka haddii ay kaa qarsan yihiin sidee ayaad usoo bandhigan kartaa sidoo kale haddii banaanka ay ku yaalaan oo aadan u baahnayna sidee ayaad isaga qari kartaa casharkeena koowaad maanta intaa ayaan ku qaadanaynaa wayna ku kala duwan yihiin window 10ka iyo 11ka insha allah waa maaragta koorsadan waxaan ku duubi doonaa window 11 ayaan ku duubaynaa insha allah iyadana waxaan ku saaraynaa window 10 hore ayaan u duubnay softwareka waa maaragta computerka youtube channelka ayay ku jirtaa insha allah ciddii u baahan dib way usoo daawan kartaa okay bismillah aan bilowna marka sidee ayaan u qarin karnaa hadda banaanka inoo yaalan annaga sidee ayaan u qarin karnaa sidoo kale haddii aynay qarsan yihiin sidee ayaan usoo bandhigi karnaa laba meelba waan ka geli karnaa inaan maaragta de desktopka meel banaan inaan ka tagno right click inaan dhahno ama qaybta midigta inaan taabano kadibna aan ku dhufano halkan ay ku qoran tahay personalize halkan inaan ku dhufano ama inaan show mo halkan aan dhahno kadibna waa maaragta meeshan personalize ayuu kusoo saaraya halkan inaan ku dhufano okay halkaa markii aan kusoo dhufano marka wuxuu ina keenay settingka uuna keenay wejigan hore ayuu ina keenay wejigan hore ayuu ina keenay annaga waxaan ka rabnaa marka halkan ay ku qoran tahay hoos ayaan u deganaynaa meeshan ay ku qoran tahay themis halkan ayaan maaragta fureynaa okay halkan markii aan ku dhufano waxaa inoo soo baxaya wejigan ayaa inoo soo baxaya okay wejigan ma rabno hoos ayaan u deganaynaa hoos markaan u degano waxaan raadinaynaa desktop icon setting waa kan meeshan ay ku qoran tahay desktop icon setting halkan ayaan ku dhufanaynaa halkan ayaan click siinaynaa halka markay click aan siino marka waxaa inoo soo baxayso daaqadana inoo soo baxayso waa tan daaqada waan dhaqaaji karnaa daaqadana inoo soo baxayso daaqadan markay inoo soo baxdo daaqadan waa kuwan meeshan ku qoran tahay computer users file network recycle bin control panel halkan ayaan tigta ka qaadaynaa haddii aan rabno inaan qarino tigta ay saaran tahay tigta ayaan ka qaadaynaa meeshaan kadibna waxaan leenahay apply okay ayaan leenahay hadda haddii banaankan aadno fiiri waa shantii application waa inaga qarsoomeen softwarada kale oo caadi computerka aan ku shubanay ayaa inoogu jira okay haddii aan u baahanay inaan soo celino marka isla wadadii haddaan ku laabanayna isla wadadii hadda ayaan ku laabanaynaa oo waxaan dhihi karnaa right click waa maaragta personalize midaan kore ayaan isticmaali karnaa okay halka markii aan ku dhufano isla wejiga hadaaya ayuu ina keenaya wejigan ayuu ina keenaya kadibna themis halkan ayaan ku dhufanaynaa halka markii aan ku dhufano hoos ayaan u yara deganaynaa hoos markaan u degano meeshan ay ku qoran tahay desktop icon setting halkan ayaan ku dhufanaynaa waa kuwan marka halkan ayaan tigta ka saaraynaa halkan ayaan tig ka saaraynaa okay kadibna waxaan leenahay apply okay ayaan leenahay okay waan qarinay waana soo celinay waan soo bandhignay waa kan intaa waa isla haynaa okay meel kaloo laga geli karo ma jirta ha hadda waxaan isticmaalnay right click sidoo kale waxaad awood u leedahay waxaad isticmaali kartaa halkan start button halkan inaad imaato halkan inaad ku dhufato kadibna aad maarata halkan gudaha u sii gasho setting halkan aan kasii galaynaa setting halkan ayaan kasii galaynaa halkan markii aan kasoo galno wuxuu ina siinayaa wejigan ayuu ina siinayaa
wejigan ayuu ina siinaya. wejigan markuu ina siiyo aniga wejigan oo dhan uma baahnin, waxaan kasii tagaynaa halka ay ku qoran tahay personalization, halkan ayaan ku dhufanayna. halkan markaan ku dhufano waa kan wejigan hore noo soo bandhigay themes, halkan aan kusii dhufanaynaa, kadibna hoos ayaan usii deganaynaa oo waxaan ka raadinaynaa desktop icon setting halka ay ku qoran tahay. kadibna waa kuwan, haddii aan u baahanay inaan qarinin tigta ayaan ka qaadaynaa, haddii aan rabno inaan soo bandhignan tigta ayaan saaraynaa. Okay, standard iconska marka sidaa ayaa loo soo bandhigaa haddii ay kaa qarsan yihiin. sidoo kale haddii aadan u baahnayn oo aad rabto inaad iska qarisana sidaan ayaa loo qariyaa. casharkeena koowaad halka ayuu nooga egyahay. sidaa iyo nabadgelyo, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. fadlan haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe inoo saar, like inagu dhiirigeli, wixii faaliyo comment aad qabtana noogu reeb qaybta faalooyinka.